السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا السلام يا مركلة دعواتياش كحرن بنيندو أوفيشال وحي لنا هاي عبيسين وناكسن ونستو أدونك أكجوكتين يول وحي أتهاي وناكسن أنت كدب waxaan joognaa caawa Faadum Hindi restaurant waan ku qaxweynayno marka saadarteed waxaan jeclaysanay inaan muxuu ahay aad la qaadano short time maadaama bariyahan ay ku yaraanay oo aan waqti idin siinin waxaan jeclaystay caawa marka inaan halkaan aan muxuu ahay kaga soo muuqdo wax yar aan muxuu ahay inta taabto marka halkaas noo joogto waxaan rabaa daawadayaasha inaan muxuu ahay ugu faa'iideeyo wax yar oo waana amba wacdi ama talo soo jeedin taasoo ku saabsan usrada islaamka ee dhisan qoys ahaan iyo famil ahaanba waalid iyo muxuu ahay iyo caruur waxa jirta waxa soo badatay oo aad u soo badatay in waalidiintii iyo caruurtii ay qadaan kala taagayeen qaasatan qurbaha dabcan kuwa gudaha dalka ku noolna arimahaas oo kale way haystaan marka muhiimadda ugu horeysa waxay tahay waalidiintu waxa laga rabaa inay ubadka siiyaan training ama tababar ku filan oo xagga akhlaaqda xagga diinta xagga dhaqanka taas oo wax weyn ka bedelaysa nolosha qofka bini'aadanka waxa arkaysaa caruur soo qaangaartay ama soo madax taagtay oo laakiin bulshada markay soo dhaxgalaan aan bulshada kala kulmaynin muxuu ahay waji wanaagsan iyo akhlaaq wanaagsan oo qofka ka weyn ixtiraamaynin ku hadalka ay doonaan sheegaan waxa ay doonaan waxyaabaha soo batay bariyahan aragno waay marka waalidiinta waxaan si xushmad leh ugu codsanaynaa in muxuu ahay caruurta la siiyo training fiican oo aad iyo aad maskaxdooda dib u soo dhisa kuwa yaryar hadda soo kacayna waxaan leeyahay si fiican gacanta loogu qabto kaliya ma ahan cunuga in cunadiisa iyo shaarkiisa iyo jiifkiisa oo kaliya laga fikiro laakiin waxa muhiimsan akhlaaqda in laga soo dhiso marka sida iyo waxaa idin leeyahay waxa lagu dadaalay intaas salaaduna waa muhiim cunugan salaad dukanin faa'iido ma laha barakana ma laha marka ilmahan salaada lagu tarbiyaha la baro waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.